waxaa magaalada Nairobi kulan uu ku dhaxmaray milkiilayaasha baabuurta xamuulka qaado ama parcelka kuwaas oo u kala goosha magaalada Nairobi iyo sidoo kale Mandera. Waxa ay ka tashanayeen sare u kac ku yimid qiimaha lagu iibiyo shidaalka, iyaga oo sheegay in ay ku dhib qabaan qiimaha cusub ee uu soo saaray maamulka tamarta iyo batroolka dalka ee magacooda loo soo gaabiyo EPRA. Waxa ay si wada jir ah go'aan ugu gaareen in la kordhiyo qiimaha alaabada looga qaadayay magaalada Nairobi laguna geynayay magaalada Mandera. Waxa ay wacad ku mareen in dadka alaabta loo qaadayay ama bakhaarada haddii ay ku dari waayaan lacagaha aysan jirin baabuur qaadi doona alaabtooda. gaarigii meeshaan inta oo Mandera aaday waxa soo reebay 8 kunooshe hada maxaysa shil loo baahnay kulli qaadana ku hadlana Mandera ha ku daro meeshii wax sideen kulli ajarna maanta xamarayna inay tahay gaariga xabtaan waa wasoo daay waa wax wada kulli zamaanka laakiin waxaan aad u fiican inaan u garanay ama badantaa wada karno ama dad ma isku doonaan ama iska taasay sociedad waxsana shizaan waxsana marka ajana ma xamayna isku yahay wagaariga waxa uu doono hada isku waxana oo fiishi waxa loo wadano hada gooshi wayna waa kasaarna waa dalban waxaana waxana wagaariga ana waliya dadka oo gaaraysanayeen ayana aan ku jeedina ana ma isku faana حمد الأولاد أول هذا عند الشيء مقطع ورانا كده كنا نتكلم بعرف حمد الله كتاب كده ده هو كاري هذا كل جزء أنا بلد فلني بيني الأولاد ما يروش أبندو هذا كله يوم السنة أخيرا بلد ما طلع نفس الحاجة مثلاً قال لي بلد ما طلع كم ستوك كيل عليه واحد بلد رجال أو بلد مسلمين وبلد بحشري وادوس وردمي والله أجمع عشان حضرينا جالس معهم درنا ضدنا في السماء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيش المشاركة معي الآن وحسبنا الموضوع الرجالي لنا الوزراء. هذه قالي لنا هدي بشأن ما توالى راعنا درو العو كرما جزء توالى كرما شيرنا ومصر علينا ليه. أنا متبرع مجرى باسل إلى 206 إلى 2017 أنا مجرى وحنوقع وحوي شيء وصهرة ما لها سرير تاني بوشنا بوقا نتكلم نشام بقول بوقا كيكاس باسل يعني سوود أيام نواي قران وقوانين نواي قران مركب قوانين وحالي ما تروحون ودي جنة وحنا نمشي عن سار وحبر ومولي كريم قاري ما يلعب الجودة بطرق والجودة واحد استوى الجودة حتى لو مديرة درجة واحدة فلسطينية وأكون جرادة في مشبر بالكي هاد ويا الكسالة العقل الجودة مرفوعا عنين قوانين لا الجودة على العقل في براس النوعين إمالان أيام نفتي قوة بكاسون قرآن وإن أيام نفتي قوة أيام عرفت أكون دران وإن سفر المسال وإن كابحان وإن نفتي قوة يروح كدران وقوانين يلعب كدران ما كان الناس من المسؤولين الروين ما يرى مشاركة منك قاري لنا كشمر كذا ما تشيل ما هلاك أنا لو ماشي عن الولاد كذا أقول أنا غلطة وقاري أنا شيل كم مرة هاي marka duulaadu deeqiyan ka hadalada rag baa ka hadli doona laakiin waxaan dhahnay kirihii waa in lagu daraa waagii aan baasilka bilaabo ku tashino waa diesel haddana 190 lacag u dhowaan u malayna marka qofkii faahfaahin doono lacagtii shimishin u sheegi doono kolley asaa iga dambeyn doona haddii ay xanuuno ku daashadeen
xoolana lagaga urursaday hosbitaalo xaaladaada aan waxba ka qaban ka raysa dhammaantood anigaa kuu sidee xarunta caafimaad ee dhammaan bulshada ay u riyaaqday. hosbitaalka Healthgate ee magaalada Nairobi waxa uu diyaar kugu ah dhaqaatiir ay aqoontooda iyo khibradooda sareyso kuwaas oo qaarkood leh takhasus gaar ah halka sidoo kalena lagu diyaariyay dhaqaatiirta takhasuska guud. Healthgate Hospital waxa uu dhameystiran dhammaan adeegyada caafimaad ayadoo qaybta baaritaanka ay yeelaan agabkii ugu dambeeyay oo casri ah. isbitaalka waxa uu leeyahay qaybta hooyada iyo dhallaanka taasoo la tacaalaysa hooyada uurka leh ilaa iyo xilliga umilitaanka waxaana caawin doona dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal xifradooda ay sareyso. wixii faahfaahin oo intaas dheeraad kala xiriir nambarada shaashada kaga muuqda. haddaba horay u gaar hosbitaalka Healthgate Hospital.